maanta waxaan ku hayaa 3 magaalo oo aan nin raga laga helin haddii aad gabar ka guursatana lacag lagugu siinayo. Rag badan ayaa dhigta u taagaya warbixintan oo durbada macwaalan galay sida ay xujadaas u furi lahaayeen magaalooyinkaasna ay isaga xaadirin lahaayeen. Magaalada koobaad waxaa lagu magacaabaa Mijazi Adrakazi, waxay ku taalaa koonfur bari ee waddanka Poland, qaaradda Yurub. Waa magaalo inuu wiil ku dhasho oo ugu dambeysay sanadkii 2014. wixii markaa ka dambeeyana waxaa ku dhalanaya gabdho oo kaliya. Sida ka muuqata warbixino badan oo laga qoray magaaladan, waxa ka shaqeeya haween oo kaliya. Dabdamisku waa dumar, booliska oo dhan waa haween, korontooyinka iyo biyaha waxa ka shaqeeya haween, dhismaha sidoo kale waxa ka shaqeeya dumar, bangiyada waxa ka howlgala haween, xafiisyada dowladda iyo xitaa kuwa qaarka loo leeyahayna waxa waardiyaal iyo shaqaalaha ka ah haween. Mar haddii ay dumar badan meel isugu yimaadaan, kama marna khilaafyo iyo dagaallo soo noqnoqda, cidda xallisa xujooyinkaas ee xaajada gasho waa haween, oo iyaga ayaa leh guddiyo iyo dad u kuur gala xaaladaha kala duwan isla markaana xalliya. Cabashada ugu badan ee haweenku ay qabaan waa nin la'aan. Gabar ka shaqeysa dibdamiska oo mar la wareystay waxa ay tiri, wax kasta oo ay noo dhan yihiin, nolosha oo dhan waxa ay noo joogtaa heer sare, balse waxaa jira nin la'aan. waxa ay ku sii dartay noloshu sideedaba haddii ay nin la'aan tahay dhadhan ma lahan. Magaalada labaad ee baahida ragga loo qabo ay ka jirto waxaa lagu magacaabaa Bangoweyn, waxa ay ku taalaa dalka Shiinaha. Magaalada ninkii gabar ka guursada lacag ayaa loogu daraa. Caadooyinka ama shuruudaha ku xiran marka uu ninku guursanayo magaaladan waxa qasabay inuu guursado ilaa 4 haween ah, ugu yaraan 3 ayaa loo ogol yahay, laakiin ka yar ma jirto. Magaalooyinkan lagama yaqaan maseer iyo dumarku inay isku qabsanaan ragga. Dumarka iyaga ayaa ogolaaday inay isla guursadaan maadaama raggu ay aad u yar yihiin. Marka hasaawaha laga hadlayo magaaladan waxaa kuu furan in ilaa 4 ilaa 3 ama 5 haween shukaansato. Waxaase shuruud ah inaad gabdhaha isbarto, marka guurka la gaarana aad kala xulato oo intii karaankaaga aad guursato. Aroosyo badan kama dhacaan, laakiin 4 ayaa loo guursadaa. Haweenku shuruudo badan kuma xiran xaajigooda, oo mararka qaar iyaga ayaaba lacag ugu dara si arooskooda u soo degdego. Ragga dhalinyarada ah ee magaaladan jooga haddii midkood la arko isagoo 1 ama 2 gabdhood la haasaawaya ama la socda, waxaa loo yaqaan wax matare. Waa laga diidaa waddanka, waxaana caado ah inuu badsado haasaawaha iyo haweenka oo dumar badan oo isku wado. Waa cagsi marka lagu cabiro dunida kale oo dalkeenu ka mid yahay. Magaalada saddexaad ee ugu dambaysa ee nin la'aantu ka jirta waxa ay dhacdaa dalka Kenya ee qaaradda Afrika, waxaana loo yaqaan Amoja. Magaaladan oo dhan haweeney ayaa aasaastay sanadkii 1990. Haweeneydan waxaa ku qasbay inay magaaladan aasaasto kadib markii ay ninkeeda isku dhaceen, isaguna oo si xun ula dhaqmay. Kadibna magaaladii uu joogay ayay ka soo hayaamtay, waxaana ay aasaastay magaaladan Kenya ku taala ee haweenka u gaarka ah. Magaaladan looma ogola wax raga inay soo galaan. Haweeney kasta ee ninkeeda ka soo caroota ayaa u soo guurta magaaladan ragga ka caagan. Marka ay timaado waxaa la dareensiiyaa xorriyad, waxaana loo diyaariyaa guri cariish ah. Waxaa ku badan dumar ka soo hayaamay raggoodii oo iskhilaafeen, kadibna halkan ayay ku haystaan nolol ay aaminsan yihiin inay u dhaanto tii raggii ay la haysteen. Waxa kaliya ee la ogol yahay ayaa ah in haweenka la qabo ama kuwa kale ee saaxiibo hoose xiriir la leh inay raggooda kula kulmi karaan banaanka magaalada, laakiin gudaha magaalada rag oo dhan looma ogola oo waa ka mamnuuc. Waxaana lagu dhaqmaa xeer ay saxiixday haweeneydaas magaalada aasaastay sanadkii 1990.